Abaarakowdii iyo 30 daqiiqo saqda dhexe ee caawa waxaa israsaaseen xooggan oo muddo saacad ku dhow socotay dhex martay ciidamada xasilinta gobolka Nugaal ee uu hogaamiyo Genaraal Muxyidiin Axmed oo Muuse iyo koox dabley ah oo sida la sheegay sitay maandooriyaha loo yaqaano qamriga. Labada dhinac ayaa rasaas muddo socotay isku weedaarsaday xaafadda Wadajir, gaar ahaan aagga xerada, waxaana wararku sheegayaan jiritaanka khasaare dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi dhex maray labada dhinac, walow warar aan la xaqiijin ay arrintaasi ka soo baxayaan. Dad ku nool aagga xabaddu ka dhacayso waxay sheegeen in suurtagal ay tahay inay jiraan dad dhaawac ah oo rasaasta habowga ah ay uga gashay guryahooda. Wixii war ay ka soo kordha dagaalkaasi magaalada Garowe ku dhex maray ciidamada xasilinta gobolka Nugaal ee uu hogaamiyo Genaraal Muxyidiin Axmed Muuse iyo kooxdaasi maleeshiyada dhowaan ayaan idiin soo gudbin doonaa.